بسم الله. أرنت كتشرت قبل كسول عدو البوا أكتاي وحاوي ضد صومالية وكدو ذيه وحانون هيدات صومالية أو ربا صومالي نمو ودقالمية صومالي نمو ذا يعلنك بلوغة oo la rabo in lagu caburiyo qabiil iyo reer oo caburiyo oo ku caburiyo waxaan anagu damacsanahay iyo danahayaga soo raaca hadaba ma assalam waxaan leeyahay war horena la inuu ku sheeg haddana lagu sheeg Muuse bixiyow iyo inta la aqliga ahaw ku suurta gali mayso reer dhan baan waxaan ku caburinayaa oo ku leynayaa waxa aan anigu rabo soo raaca kuma suurta geliso markii ay Soomaalinimadooda doonayeen oo loo diiday oo si walba loo cadaadiyay oo meel walba culays laga saaray oo nooc walba loola dhaqmay markii ubadkii iyo maatadii iyo hooyooyinkii u adkeysan kari waayeen baa waxa loo isticmaalay kaare ummadda islaamka ah in lagu xasuuqo suuq in lagu xasuuqo guriyaha in kaare iyo hoobiye lagu xasuuqo oo lagu soo tuuro hooyo iyo todobadeedii ciyaalaha meeshii ku geeriyoobeen odayaashii waaweynaa wixii carari kari markii carareen dhaqaaq kari waay meeshii ku geeriyoobeen ubadkii iyo hooyooyinkii iyo maatadii iyo masaakiintii in hoobiye xaraam caleeg muusow waxaan ku leeyahay dhiiga islaamku xaraam buu ka leeyahay su'aashan se isaaq weydiinaya waxa weeye miyaan sheekh lahayn war miyaan qof islaam lahayn war miyaan wax islaamnimadu dhibta lahayn war ma waxaad inikoo doonaya dalaad kala jartaan Muuse raali kaga tihiin inuu ubad xasuuqo inuu hooyooyin laayo inuu masaakiin hoobiye la dhaco inuu suuq la dhaco xaraam waa waxaan sharciga islaamkana ku jirin kuna jirin sharciga islaamkana ku jirin damiirka bil aadankana ku jirin waa inuu ka qabtaa daadan Muuse diin garanayn miyaadan culimo ku qabata lahayn culimada isaaq waxaan leeyahay anu Somaliland oran maayo Somaliland wax la yiraahdaana ma jiraan reer ku duulaya oo la aanu inay xasuuqna weeye dhul bahante iyo isaaq ba islaynaya war mana dabar jari kartaan dhul bahante dabar goy maayo laakiin isaaq waxaan ku leeyahay culimo miyaadan lahayn meeda culimadii isaaq meeda dadkii islaamka ahaa meeda dadkii diinta ku dhaqmayay war miina dad Muuse qabta war ma waxaad raali ka tihiin oo isaaq isku raacdeen in dumar iyo caruur hoobiye lagu garaaco ma dhamayn kartaan hadda damacdeen alla ma damcin inii ma suurta gelaso mana dhamayn kartaan dhul bahante kuma xasuuqi kartaan waxaan arkay ina kaahino hadlayo leh hebel ba nabad ku baaqay hebel war waxa dhul bahantaha kala jarjan dhul bahanta waa mid cadawga yagana waxaanu nabad ugu baaqnay iyo waxaanu wanaag ugu baaqnay midna ma jiro saa ubadka yaga iyo caruurtayadii baad leeyna saaye xaqay nabad u taala war ma nin gurigiisi ubad iyo caruur tiisi iyo ubadkiisi hoobiye la dhacayo baa nabad ku baaqa inuu kumaanu baaqin oo nabadiina ma rabno oo dhul bahanta waa mid oo kala go'i maayo oo ma kala jajabin kartaan nin cadawgiisi amaanana dhul bahanta maanta male kumana jiro namana amaani kartaan namana kala jarjari kartaan dhul bahanta waa mid waana midaysan yahay ubadkiisa iyo caruurtiisa inuu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين haddaanu nahay jaaliyadda reer SSC ee magaalada Nairobi waxaanu rabnaa cidii codkani gaadhay inaanu halkan uga sheegno magaalada la sacaanood dhibaato aad u badan baa ka jirta shalay ilaa iyo maanta dagaal intii habeennimadii mooyaane labadii maalmood ba soconayay oo shalayna waagu u bariyo gobolka u dhacay maantana waagu u bariyo ilaa hadda dhacaya baa socda dhibaato aad u badan baa taagan guryihii iyo magaaladii deegaankii waa la duqeynayaa aqaladii waa gubanayaan xabadii ciyaarka yaryaraayo daaradihii fadhiyay u gudubtay hooyooyinkii bay u gudubtay duqeydii bay u gudubtay isbitaalkii dadka dhaawaca la geeyay hubba lagaga dabageeyay oo halkooda lagu duqeeyay dhibaato aad u badan baa jirta waxaanu kula talinanaa ciddii Somaliland ay wax ka maqlaso oo ama culimadooda ama isimadooda ama hay'adaha ay ka dambeeyaan nimankaas ummadda in laga soo gaaro nimankaasi dadkii waa baabi'iyeen oo dalkii waa baabi'iyeen oo xabad uga turi maayaan waxaanu u gudbinaynaa shacabka reer Laascaanood isu gurmada oo dadka faraha badan ee dhaawaca ah ee isbitaalada yaala daway u baahan yihiin oo waxay cunaan bay u baahan yihiin oo gogol bay u baahan yihiin oo marakaneecay u baahan yihiin oo bustayaal bay u baahan yihiin oo meesha cid wax ku tala gashay ma jirto filan waaba dadka nabarku ku qabsada isu gurmada intii caafimaadka qabtay
la baxsada maanta inta dhaawaca ee dhulka taala dadku cirib go'i maayo ummad guuna baynu nahay waxba ka hadhaya dadka deegaanada ee loo qaxay maantada noo dhiciya dadka soo dhaweeya maalinaad ka ganacsataan oo guryo ku qaaliyeysaan oo adduunyo ka raadisaan lama joogo dadku ubadkii afku ku sitaa maanta dadnimadiina muujiya guryaha dadka u fura oo tubaraagaha u fura dadkiina tuulooyinka oo bakhaarada u fura ummadda la baxsada dadkiina reer miyiga ee deegaanada ku xeeran waxaa loo baahan yahay xoolo inamadii howlwadeennada ahaa loo qalo ee caafimaadka iyo gurmadka ka shaqaynayay dadkii bukaanka ahaa loo qalo waxaanu kula talinaynaa nimanka ergada ah ee odayada iyo cuqaasha iyo isimada leh ee 330ka xaaladda taagan hoggaan lagala soo xiriiro oo cidii wax inoo wada ka gudooma oo dadka kala hagaha loo sameeyo isgarab yaaca hal la joojiyo waxaanu rabnaa inaanu u mahadnaqno dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waad ku mahadsantihiin inaad qirtaan xaq inay u leeyihiin dadka deegaanadaasi aayahooda inay gacanta iyagu kaga taliyaan go'aankooda inay gaaraan rabitaankooda inaan la khasbin waxaanu kula talinaynaa ciidamada Soomaaliland ee hubaysan ee dadka laynaya war dhiigiinana faraha ha u gelinina ummadda muslimka ee aad guryahooda ugu timaadeen idinkuna dhiigooda faraha la gelina inna dimaa'akum bu nabiga alayhi salatu wasalaam inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi shahrikum hada dadka magaalada ee dagaalamaya waxaan leenahay meydka la suura xumaynayo ama la sawirayo ama ciida lagu sayrayo waa xaraan lama ogola tagaalada saa looma galo hal la joojiyo cidii aad qabataan dadku waa dad muslima yaan waxba la yeelin hal la hayo aan dadkan laynaya in afkana ka sheegeen anagu raali kama nihin celiya oo nin walba ninkaaga u yeed oo hawshan ku joojiya halka tan kale sida uu sheekhu sheegay meelahan la soo gelinayo dadkii wax noqday ama dadka maxaabiista ama dadka dhaawaca waxa weeye waa wax fiican maaha hal laga joojiyo meediyahan la soo gelinayo hal laga joojiyo dadkuna hay sunna xariisteen oo hay gaarsiiyeen wax walba oo hay caawiyeen qofka ladan qofka kale ha caawiyo de maanta waxa idinta la kiib barakacayna in qof waliba uu soo dhaweeyo oo meel walba loo furo kuwa daawooyinka iyo custaalada iyo meelaha ay u xiran yihiin iyo bakaaraduna ha u fureen dadka anigu intaasan ku soo koobi lahaa waxaan oran lahaa hal arrin baan u diray lahaa kuwan Soomaaliland ciidanka ah ama maamulaya ama u ah taliyayaasha war dadkan shicibka ah ee aad iskaga hogaaminaysaan qoryaha de waa dad shicib cid idinka soo horjeeda maaha dadkan iyagoo shirkoodii iyo ku fadhiyo oo go'aamadoodii soo saar raba ayaa subaxii la weeraray shalay toohayd meelahana waxaan ka maqlayaa waana la soo weeraray wasiiro uu ka mid yahay maxamed kaahin iyo niman kale inay leeyihiin annaga la soo weeraray iyagoo guryahoodii iska jiifo oo weerarkii lagu bilaabay magaalada bay haddana waxay suuqa gelinayaan ama meelaha kaga hadlayaan social media waa ciidankii baa la soo weeraray oo waxaana soo weeraray garaado shiraya oo go'aankoodii soo jeedinaya oo la weeraray go'aanka la hor istaagay baa wax weeraray caqliga bini aadanka mana gasho lamana suurayn karo aad iyo aad baan idin salaamayaa intaasna anu ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh